بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. soo dhawaada dhammaan bulshada Soomaaliyeed meelaha ku sugantiin marwo iyo mudanayaal waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada walaalayaal, libaaxna ma jiro, shabeelna ma jiro. dabcan looma baahna inaynu niyad jabno dabcan oo aynu waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Maryam Usmaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa cabdisalaan gentleman bahda nabadiyo nolol midnimo qaran maasha allah. wadaniga Soomaaliyeed ee ahna kulley de muxuu yidhi haddii lagu sheego waa la sheelaa. suldaanka dhalinyarada Soomaaliyeed maasha allah, guliyo gobonimo. soo dhawaada dhammaantiinba. waxaan rabaa inaan caawa halkan qodobo doora maasha allah aan bartan idinka soo jeediyo oo ay kow tahay guushii iyo gobonimadii ka dhacday wadanka la yiraahdo Qatar iyo raganimadii maasha allah ay bulshada halkaa ku dhaqan ee Soomaaliyeed madaxweynahooda ay ku soo dhaweeyeen. taas waa qodob dhalad bohoodle. guuliyo gobonimo inaad aad baan ku salaamayaa. Muhammad Dhaqane in yariga raale hada balinta dadku soo yara fara badanayaan inta badan. Taniya David way inta soo wadani Soomaaliyeed maasha allah. habla geela dhicin kara, habla geesi dili kara, geesteena mooye quruxdana ka wada goba, geesteena mooye gey kale ma joogaan. hablaha Soomaaliyeed noolaada walaalayaal maasha allah, iyo rag iyo dumarba. hablo de macayla hooyooyinka ilaa haweenka Soomaaliyeed gobbaatiin wadadgoon baatiin. allah raxmaanka ha idin karaameeyo, ha idin sharfo maasha allah. waxaan rabaa inaan ka hadlo horta caawa aad baan faraxsanahay maasha allah. waxaan ku faraxsanahay waxyaabo fara badan baa isku soo beegnay. horta maanta waxay ahayd 15 May 15 Mayna maasha allah. de waxay ahayd maalin guul iyo gobonimo ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo isirka Soomaaliyeed oo hablo Soomaaliyeed oo hooyooyin Soomaaliyeed naaskooda shaqay oo dabcan Soomaali xalaal ah oo 15 dhalinyaro maanta haddii ay maanta noolaan lahaayeen ama loo sheegi lahaa sida sayidkii oo kale darwiishkii Muqtaay Daraawish iyo nimankii SOL waxaan maanta dhacay 15 May inay Soomaali isleenayso. wallahi waxaan filayaa maasha allah in ay sameyn lahaayeen inay de urku taalo iyo nacayb waxaan ku ri ay ooyil balaayeen. waayo Soomaaliya maanta isleenaysa iyaguna maxay u dagaalamayeen Ingiriiskii iyo Talyaanigii iyo 13 dhalinyaro bay ahayn walaal maasha allah. waxay ka soo horjeedeen inay gees Soomaali cadawga ka xoreeyaan. maantana Soomaali baa qoryaha la isugu dhiibayo, reer qansax baa tahay, reer qudhac baa tahay, waxyaabo noocaas. waxaan maanay nimankaas urku taale ku noqon lahayd. taas waa qodob oo iyagan dul istaagay. intaan horta kuwa iyo dul istaagin walaalayaal waxaan caawa aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay oo guul iyo gobonimo. dadka qaar baa waxay moodayaan wax yar oo sahlan. walaal Soomaaliyeed oo inaga mid aha oo aynaan ka maarmayn oo runtii haddaan cabdisalaan ahay in badan weli anigoo ka hadlay xitaa kelmad xun maan odhan. intaana social media waan ku arkay, laakiinse qalbiga iyo niyadda runtii waan ka nabcaysanay. waayo walaalkiin buu ahaa Soomaaliyeed ninka la yiraahdo Maxamed Dinos. maxamed dabcan Dinos miyuu ahaa ee diintan masiixiga qaatay. runtii haddaan cabdisalaan ahay waan ka naxi jiray oo ma jeclaysan jirin, waayo isagu shakhsi buu ahaa social media hana nugula jiray. laakiinse shakhsigan waxaa la yidhaahdaa luqadan Ingiriishta influence ama duufsi ama saameyn. haba noqdaba keligii ninka la yidhaahdo Maxamed Dinos walaalayaal inoo sheegay barnaamijka. wallaahi waxaan aad iyo aad bil Ramadaan baa soo galaysa wax kale Dinos baa wala jiray wax kale igama dhaarsanayo. laakiinse wallaahi markaan daawado oo aan xoogaa yara dhageysto runtii isagu maanta wuu ooyay oo dee diintiisa sax ahayd ee allah raxmaanka uu soo dejiyay buu ku soo noqday. marka hore nin xalaal ku dhashay buu ahaa, laba waalid oo muslim oo maasha allah oo diinteena xalaasha ku dhashay baa kala dhalay. laakiin aniga wallahi way damqaysay. ummadda Soomaaliyeedna anigoo qor odhanayn dhammaantood way damqaysay. waayo qof Soomaaliyeed oo luqadii Soomaaliga inagula hadlaya oo diinteena islaamka aan haysan oo faafinaya ehlu kitaab weeyaan. laakiinse dabcan Soomaalidu waxyaabaha qura ee dunidu ku jamato ama loogu taag waayo waxa ka mid ah
iska daa Christianity masiixiye xitaa waxaan inaga waayay 1% ama less than 1%. in ka siyar 1% oo shiica noqdo. waan arki jiray wareen Tansaaniya Dar es Salaam joogay qaar shiica iyo qaar kale oo maasha Allah markaan joogay Malawi oo kale xitaa gabiyoon xitaa maalikiye ma haysano Hanafi dabcan diinteena muslimka waa afar madhabood weeyaan sunnigu waa Hanbaliya Shafiiciya Hanafi iyo Malikiya Hanbali Hanafi iyo Shafiiciya gabiyoon horta wada Shafiiciyiin walaal intaan SOL qal intaan madaxweynaha khudbadiisa intuusin waxaan runtii aad iyo aad ummadda Soomaaliyeedna aan leeyahay maasha Allah billahi calaykum ku diirsada keligii ha eegina oo hays oranay Maxamed Dinos keligii buu ahaa shakhsi buu ahaa dabcan laakiin soo walaal shakhsigani inta qof uu lumin lahaa way waxay noqonaysaa dad badan oo iimaankoodu daciif yahay oo dabcan haddii ay waxaan sii wadi lahaa oo maalin kasta oo social media ha soo galaa isagoo diintii masiixiga wada diintii kristaanatiga wada qaar badan oo Soomaaliyeed oo diinteenaba murakaga jiraba oo dabcan ama baahi ha noqoto walaal waan idin salaamaya billahi calaykum raggeed marmeel joogtaan bal khudbadeeda si fiican dawaa u dhageys ayuu saameyn lahaa horta halkaasaan ka salaamaya Maxamed Dinos waan u duceynaya waa qofka noocaas oo kale duci inooga baahan yahay xabiba ka dhanaad baan ku salaamaya Allah raxmaanka ba tawfiiqda ku waafajiyay waa guuliyo gobnimo waa wax Allah raxmaanka dabcan oo walniyo kan mala waa gaal kala maanay waan tuuraya way waxaan ka hadlayaa qof muslim oo Soomaaliyeed oo gaal noqday way qaar badan oo meelaha jooga ama Jarmal jooga ama jooga Faransiiska jooga ayaa markay noloshu ku adkaato noloshu ku yara adkaato ay macal diintooda ba iibsadaanba wallahi waa guul iyo gobonimo Soomaalina waa waxyaabaha looga taag waayay inaan Christianity qaadano inaan xitaa noqono Shiicayna noqono taas horto farxad bay tahay maasha Allah waan ku faraxsanahay in badan halkaasaan ka arkay Maxamed Dinos waxaan ku leeyahay walaal soo dhawow diintaadii wanaagsaneed ee quruxda badnayd maasha Allah hooyada iyo aabaha lagu mihiri hooyada iyo aabaha isku meersadeen aad ku dhalatay ku soo dhawow guuliyo gobonimo kuwa kale ee Soomaaliyeed iyaguna Allah raxmaanka ha soo hadeeyo diimaha kala qaatay inaga ka maarmayno oo qof Soomaaliyeed oo luuqadeena ku hadlaya dhiigayna ugu yaala maasha Allah waa guuliyo gobonimo taasuna waa sharaf maasha Allah oo ha eegina qaar baan arkay markiiba ilaa qaar baa iska nagatay mala waxay doonayaan diinta Christianity ku sii jiray ama wadankii haado ama cirka haado ama marka hore nolosha waxay doontaa ku kaliftay waxaad eegtaan saamaynta uu yeelan lahaa qofkan Soomaaliga diin kariim ayaan Allah ciise gool soo dhow uu diinta islaamka u geysan lahaa waayo dadkeena qaar baa qalbigooduna iska jircsan yahay lana doofsan karaaba oo influence lagu sameyn karaa waayo waxaad arkaysaan qof Soomaaliya barta soo fadhiisanaya daarood baa waxaan kala isaaqba qof buu saameynaya qof iska miskiin oo qalbigiisa iyo niyadiisuba hadda inta iska daacad ba noqon lahaa maxaa nadu maranaysaa mid diinteena ka baxayba taas horta waa guuliyo gobonimo aad baan u faraxsanahay waa qodobkayga labaad oo leenacaw aan halkan soo galay wala khamiista la filayaa rabadaana ma sha Allah taala qodobkayga labaad aan bartan soo galay waxa weeyaan oo noo hambalyeynaya oo aan u duceynaya iyagana dhalinyaradii Soomaaliyeed iyaguna ma sha Allah SYL waxay u dagaalamayeen calanka Soomaaliyeed calanka maanta aan dusha ku sito ayay u dagaalamayeen cadow bay la dagaalamayeen waxay jeclaayeen gobonimada Soomaaliyeed waxay jeclaayeen sharafta Soomaaliyeed maanta haddii SYL ay noolaan lahaayeen ama loo sheegi balahaaba ragii ilka u galay gobonimadu dhayal ma aha mid lagu helay dhadig baa u dagaalamay waxa dhaliyay gobonimo geesigeedii dheelmaday ragii ilka loo dhigay ragii dumar bay lahaayeen dumarkii shaaha u karinayay oo habla Soomaaliyeed ma sha Allah iyo haweenka Soomaaliyeed haweenku qorona maaha cidna maaha waa nasiib daro 15 May in maanta Soomaali islaynayso oo qabyaalad iyo qurun iyo reer hebel baadkaaday ay shakhsiyaad ducufa oo musabixina ka yahay iyo waxaan la yaabanahay niman inta Israa'iil iska dhigaano xidigay sita oo la cadawgii baanu ka adkaanay mid Hargeysa ka tagay hebel taanir musabixiin maadiriin waan dhageystaa wallahi runtii Soomaanta hebel Dinos iskumu qoomameen oo kamu ooyeen diintii Christianity uu qaatay ana waxaan maanta ka ooyay war ninka weyn ee Soomaaliyeed
ee aqoonta sheeganaya ee raganimada sheeganaya aniga kuwa buntland habay dambeeyaanba ee maanta waqooyiga ama hargeysa ee burca ka soo jeeda hebel maxaa la yidhaahdaa in nuux taali ee muuse bixin maadarkiin ee ku faanaya leh cadow baan jibin wariyuu jabiyey ma nin soomaaliyeed baad jibisay kan kale dhinacan kale isaguna ka faanayo wariyaa jibisay ma nin soomaaliyeed oo inaa kala maarmayno inuu walaalnaho isku midnahay baad jibisay mise soomaali baad xoreyso imaaraad baad ka adkaatay iyo etoobiyaan wallaahi waa nasiib darro waa nacasnimo waa dullinimo waa damiir laawayaal waan ka ooyaya wallaahi inaana midna taageerin inkastoo dadka qaar aad iyo aad u xun yihiin oo doonayaan inaan malaa cabdiweligaas ama muuse bixi mid gaar aan u caayo idhaahdo war aniga way suukay mid wallaahi inaan cabdiweligaasna fikirkiisa taageersanayn muuse bixina taageersanayn weligeena taageerayn wax calankaa ka hooseeya oo soomaalinimo ka hooseeyana wallaahi baanan taageerin oo allaha raxmaanka ay googi waxaan u arkaa nasiib darro iyo nacasnimo maanta in soomaali la isku jabiyo oo weliba qaar odayaal sheeganaya oo cirro lahoo waaweyn idhahdaan soomaali waxaan kale oo iyagana waxba ma odhanayeen qaar aan arkayo oo inkastoo kuwa walaalayaal aanan waxba ku sii tiigaanayn qolyo social media aan ku jira dabcan oo iyaguna qabiilka ama isaaq ha noqdaan ama daarood ha noqdaan ama wax kale ha noqdaan oo ciyaal yaroo reer muuse shaani iyo ciyaalkii muuse shaani iyo ciyaalka cabdiweligaas dabada kuwa taabuunbuunanayaan oo hereetaan reer hebelne waanu guulaysan cid guulaysatayna ma jirto walaalayaal waana dhibaato soomaali ku dhacday waxaan leeyahay maanta waxay ahayd maalin farxad ah oo ummadda soomaaliyeed waayo sanad guuradii ka soo wareegtay waxay ku beegantahay maya 72 sano ragga iyo dumarka SWL waxay u dagaalamayeen waxay Hargeysa iyo Burco iyo Berbera iyo meesha la hado Boosaaso iyo Garowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Cadaado iyo Baydhabo iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gabigooda oo dhanba yaa oran kara markaa kaas iyo kanaasku Soomaaliya kanana wuxuu taagan yahay tukaraq baan cado oo meel yaro de Soomaaliyeed oo magaalo Soomaaliyeed baa waxa lagu jabinaya dhalinyaro Soomaaliyeed baa bartaa ku dagaalamaysa waxa weeyaan waa liidnimo waa doqonnimo waa raganimo darro waxaan leeyahay bal maxaa tahay Muuse bixiyow cabdiweligaas oo adiguna maxaa tahay hayb baabad sidataa maadiga hogaanshaha adiguna qabiil baad sidataa kan kalena qabiil buu sitaa war qarannimadii meeda Soomaalinimadii meeda maxaa dadnimadii helay maxaa hebel taaniyo balaa iska dhigaysaa waxaan helay waxa hayb baabad sidataa maadiga hogaanshaha muxuu ninkii kale abwaanka ahaa Allahu naxariiste hebel gardhe dibi kaliya laga qalo go isku dhadi biradii waxaan ka doorbiday duubiga shan lagu cuno waa inay Soomaali oo dhan wada guulaysato ayaa ka qurux badan oo ka raganimo badan in hayb gaara ama qabiil gaara idhaahdaan anaga guulaysanay walaalayaal horta intaanay barnaamijyada kale aanan idin saddex galin waxaan doonayaa inaan intuso anigu tanaan guuliyo gobonimo waxaan maalinta dhawadaan bilshan tagana intanuun baan doonayay oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre intan baan ka doonayay oo maanta sameeyay inkastoo aanan kala qaadqaadin oo guusha uu farmaajo gaadha ay tahay guusha uu Khayre gaadhay haddii uu Khayre isaguna uu guulaystana ay tahay guul uu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi farmaajo gaadhay waa rag wada shaqeynaya waxaan ku faraxsanahay inaan iyaga la kala furfuri karin Allah idin guuleeyo Allah raxmaanka madaxda waa loo duceeyay Allah raxmaanka haydin ka dhigo kuwii Soomaali isu keeni lahaa ee Soomaali horumar gaarsiin lahaa maanta xafladii ka dhacday wadanka laada Qatar ee madaxweyneen inoo shargareey dhigahan oo dhiga ma sha Allah runtii waan ku faraxsanahay madaxweyneen Maxamed Cabdilaahi farmaajo waa intaan biljan ka doonayay intaas uma doonayay iyaga hal hada walaalayaal fuliixantii ma mooga oo tii kulli warxmato shilka inkastaana waqti badan ku lumin maalinta dhawadaan biljan dooni aan tagay Allah raxmaanka waa qof kasta qalbigiisa arkaya duni iyo dhaqaale laakiin waxaan jeclaan lahaa waana dhici doontaa insha Allah ta'ala ra'iisul wasaarana waxaan leeyahay mudane ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre la taliyaashaada iyo dadka kula socda iska sax anigu sidan baan jeclaa sidan maanta qadar ka dhacday ee madaxweynaha lagu soo dhaweeyay ayuun baan jeclaa tan daawada
سيشتر قريب بالله عليك. ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله شعبه horta madaxdiina ixtiraama ma sha Allah laga yaabaa inaad horna u dhageysateen waan ku faraxsanahay guuliyo gobonimo shacabka reer Qatar oo iyagoo isku duuban oo dhameystiran inay xafladii madaxweynaha ma sha Allah oo madaxweynahooda ay dabcan khudbadiisina ay wax ku qaadano dabcan madaxweynuhu inagu noo shaqeynaya waxa weeyaan waa adeegi wuxuu adeegaya ummadda Soomaaliyeed ma aha inaynu qabyaalad iyo qurun ku meeraaleysano taasuna walaalayaal waa qodob waxaan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay oo markastaan ku faraxsanahay oo isagana halka hambalyo leeyahay walaalkeen Maxamed Dinos oo isaguna diinteena ku soo noqday sidoo kale waxaan u hambalyeeynaa dhalinyaradii SWL Allah Rahmaanka waanu duceynaa iyagu ducay u baahayn way naga hooseen maanta waayo waxay u dagaalamayeen gobonimada Soomaaliyeed anigu inaan calankan yeeshay u dagaalamayeen inaan calankan leeyahay bay u dagaalamayeen halka maanta qaarna dulinimada ay u dagaalamayaan waxaan kaloo leeyahay ma sha Allah waa guuliyo gobonimo in yar oo kala baan rabaa inaan bartan dabcan ku dhex darsado caawa horta haddaan cabsanaan jirtan maalahay waxaan ballan qaaday ummadda Soomaaliyeed way la socotaa laga yaabaa iminka inay qaar islaahdeen mar labaad isku dayaan waan ku qoslayaa oo qosol baygata ciyaal yar oo waliba u badan reer Muuse Shaani ama ciyaalkan fikradaha khaldan la aaminsiiyay ee Muuse Shaani wax noocaas oo Faransiiska la jooga meelaha ka soo buuqan laakiin Allah Rahmaanka baa aniga la shaqeynaya inta aan bilshan ku maqnaa waxay isku dayeen oo saadeen gol yar oo waliba haweenka Soomaaliyeed haweenka la haday inta haweenku tageen bay waxaan xafladda 18 May aad noo qabataan wax noocaas gobolka la hada Baydalwaaq nood iyo oo shay meelaha kuwii waliba foostooyinka soo riix jiray iyo kuwii xayawaaninta ay cawaanka ah ee nooci miyiga ka yimid ila markii dalkii burburay dalkii Soomaaliya inaga burburay kuwii foostooyinka riix jiray kuwii kuuliyadaan jiray kuwii idaha raac jiray reer baadiyuhu waa dad wanaagsan laakiin kuwii tuulooyinka joog jira bil akhlaaqda ah ayaa Yurub soo galay waxaan ku maray oo aan ku maray bal hadaa ragatiin in yarun baan ka doonay laga yaabaa in inay bad kale isku sii galaan waa bal hadaa nima ragatiin aniga waxa doontaan ba anigu anon isfaanay in isfaashay waa riis nuugtay hadana waan idinku celinayaa ma fog battery nin amaanti meersha riis ma weeyaan mid kala ka daba tiri hadii ay ku moosaan kartaa la isku muuja waa ragaan soognahay oo Soomaaliya beenid mashaan haybna la wadaago idinka idin taala kuwa Jarmal jooga kuwa Sweden jooga waayo Soomaalidu kal baqda bay leeyeen kal xishoota malaha waxaan ku maray bal ina aw faaraxo ina aw jaamaco aniga dawac bal libaaxu dabadiisa ka ciyaa daqaqaaq ka eegmada daymadu ka carra meelaha waxa ka soo taadan waxa doontaan ka soo dhac nin raga baan anigu hadallada qaar afkayga ma soo marin karo nin kuma oran karo khaniis baad ninna ma oran karo nin baa qaba Faransiis been wada joognaa waa ilma xayawaanka baqanaya ee dumarka lacagta u soo daba ka dhiibay hoolka noo kiree aw faadumoy waaniga dumarka afka leeyma geliyo haweenka oo dhan waa jecel waa hooyada oo kale qaran Faransiiska wada joogno caawa waana rabadaan waa ninka hadi doona insha Allah taala haddaan rabadaan gudaheeda qabataan taasoo meesheeda oo rabadaan cidna wantay waxaan wacd kula maray waynu isgaranaynaa ninka war waxba dabada meelaha isku qarin waynu isfahmaynaa bal haddaad oo shay iyo nood aad ku qabataan wax loogu yeedho calanka mid ka hooseeya adeer ilma xayawaanow ama tulusku taga ama oo shay kaalaya ama nood kaalaya wallahi Faransiisna waa ninkaas آخرنا وارد كات هرتينا أوشينا وارد كيما دورا ورالكي فضعت يا عروتي سعادة دون سلامية أوشينا ويك الصوص عداني من دورا وعن كل كوغات محايد كوكلفي لول إنا أو تكتاني يقف دمرة حفلة نوقبة سنة كان نوع سماء ولي بوين تنبرشم كمانا رميو المحيوانو شاهريني إنا أنت قف دمرة وتكتان هذا عبسلان شتل ما وحنا عاصر حفلة نوقبة horta tiina way idinka fashilantay waliba black market bay doonayaan inay ku sameeyaan oo intii aan biljan ku maqnaa ama ra'iisul wasaaraha iyo xafladiisii soo dhaweyntiisii iyo ummadda Soomaaliyeed ilaa anigu nin kastoo qabiiliya aniga ka qolo adag inta qaar ka nool yahay Soomaalidii qayb kale halka lagu soo dhaweynay xafladaha lagu qabanay ay islaan ka gaarsiiyay oo horta uu suurta galan iminkana haddaan rabadaan anu in ka dulqaad badanahay
waxyaabaha aad ku wareegataan kuma wareego rabadaan isku daya hadday dhacdo waa ragga qaar aan la hadlay waa raggii waagii dowladdii Soomaaliya allaha u naxariistay madaxweyne maxamed siyaad barre waagii uu for Soomaalida oo la lagu jiray ayaa waxa dhacday kuwa reermiyo sida kuwan saynay jaahilinta ama foostooyinka soo riix jiray ama tuulooyinka joogi jiray waxaan ku wada jaahilinta waxna qorin waxna akhriin primary school aan soo marin intermediate soo marin sanadkeer Francisco si humanitarianka ama waxa la yiraahdo Allahu musta'an waxa la yiraahdo talo luqadan kala tamcan sabsidaqay balaada sanad yaro Soomaaliya baa halkan lagu sii sadana Afrika saacad Soomaali caayano masani anigoo caalankaygii sharafteedii iyo gobonnimadeedii sidaad wax iga daba sheegtaan oo iga daba qaylsan anigu laakiin balan baan la galay balantiina idinka ka soo bixi kar waayay waxaan ku roor bartaan isugu nimaan waana jaahilin waxna ma qoran waxna ma akhriyaan waxa dhacday waagii dawladnimadii Soomaaliya markii far Soomaalida oo lagu jiray ayaa kuwa reermiyo kuwaas ka mid yihiin oo jaahilin ayaa miyiga mala loogu tagay oo qoladii gobadhada saarneyd ee far Soomaalida ay xisaabtay tabeetana iyadoo loo ku ugeeda iyo ku ka jarta qaar kamid oo loo wallahi inaan markaas waxba qorin waxba uma faanay laakiin iska noolaada way aniga iyaga soo doonto inabad gelin waaye qaar noocan oo kala ee miyiga loogu tagay dadna macallimiintii Soomaaliya waaga kamidaba wuxuu isoo bal xisaabtan ka jarta leeyahay fahansiin wariye masuuxu ku yiri markii shan ka jara laba ka jara shan laba ka jar saddex baa soo hadhay dadna saddex bay fahmi waayeen macallinkii baa wuxuu ku yiri isagoo bal isla niyo mala arigay wax ku fahmayaan oo koon arigay wax raacay idaha iyo riyaha iyo wax ayaa macallinkii meesha u dhigay baa wuxuu ku yiri tusaale ahaan shan riyaad baad meel ku xaraysata shantii riyaad ayaa waxa booday bay ku yiri laba xeradii ka booday imisa soo hadhay waa qalbi adkaanta halkay ka qabaanayo macagnimee dadna macallinkii wuxuu ku yiraahdaa macallin riyaan ku naqaanayo haddii xabadi booday iska daa laba midba ku hadhay ma maysaba waa tusna tusaalun buu islaad ku soo taa waa shan riyaad baa xero ku xaraystayba shanta riyaad laba kamid ah boodi imisa xerada ku soo hadhay halkay odhanayaan saddex baa ku soo hadhay buu xidhay macallin riyaan ku naqaanayo haddii xabad qura boodo waxba ku soo hadhay maayaan qaar noocaas oo kala ilma xayawaan baatina daba iska noolaada hooyooyinkiina boqol dollar dira Yurubna Soomaalinimadina iskaga jooga waa wareersantiin muuse shaarno waxba idin tari maayo kooxahan kale idin waarana waxba idin tari maayo calankana wax la idin ku siiya waxa tii nooca oranaya riyaan ku naqaanayo waxba ku hari maayo waa qaar iska baalayacniyo umada kale ma dhex galaan luqad ma bartaan dadnimo kale malaha qabyaaladii qurun baa lagu rikoor gareeyay weel ma xayawaan waqti badan ku lumin maayo iminkana waqtigeena uu kala dhamaado anu bilaha rabadaan dadka badooda ma galo oo iska cibaadaystaan masaajidkan aada rabadaan ka hor baynu ballasanay rabadaan ka horna inta meel yar oo madow isugu timaadeen waliba dumar soo kaxaysateen dumar malacab sanad dumarka aan horta dumarka xitaa haday dumarku soo caayaan iyo haday waxay doonaan bay ugu sameeyaan ugu dumarka ixtiraam iyo sharaf baan u hayay waayo haweenku waa awro waa haweenan iyagu cidna ma aha haweenku marka hore waxay noo jiraan haddana Soomaaliland haweenku waa dhaxadin oo haweenku de waa Soomaali oo dhan bay ka dhaxayaan taasuna waa tan oo waxba idinku si tigaali maayo Allah raxmaanka idin faansiyo Soomaalinimadina iyo dadnimadiina iyo waxa tiin maca kuwina Mareykanka jooga waa luunsantiin fa Soomaaliland war Soomaaliland wax la ma jiraan Soomaaliya waa Soomaali calankan dunidu idin taqaana what the hell Soomaaliland what the hell Puntland what the hell Jubaland full of nonsense dunidu waxa Soomaaliya is one nation calankeena waa kan aan madax ku sisto kaasa ka xaasila xitaa ciyaalkiina waa shan iyo ubadkiina waxa bartanana kan leedihiin Djibouti waa la garan karayaa waa dal ay mudarisnahay oo international community-ga ama UN-ka caalam ku leh wax ka hooseeyo caalamkan ka hooseeyo duniduna waa aqoonsatay ma jiro taasna waxa weeyaan walaalayaal waa rag noocaasa waliba gaar ahaan waa reer Muuse Shaani oo wax iska cilin iyo balaayo baas ku jirto iyo waxa la yaabay sid waa reer Muuse Shaani iyo ximaarada dabcan uu isagu meelaha keensaday oo yiraahdo qabyaaladii qurun ka shaqeeya markaa umada Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa horta rabadaana wax yar baa ka hadhay oo laga yaabaa inay Khamiista noqoto kuliya gobonimo waynu guuleysanayna Allah raxmaanka tawfiiqdaayna waafajiyo inta xunxunna walaal u joojin meena jaahiliinta isagana dulqaata waayo nimanka noloshooda ku ciyaarayaan oo nin jaahilo oo meel iska joogo war musabixi Soomaaliya wax bartay
markuu tegay midowgii Soviet Union dowladda Soomaaliya u dirtay markuu maasha Allah meesha la yiraahdo Mareykankana Soomaaliya u dirtay Cabdiweli gaasna kadaalig wuxuu baa xaasro la isugu soo haray calankan Soomaaliya kaas baa inaga dhaxeeya kaas markuu guuleystay inuu guuleysanayna insha Allah ta'ala waanu guuleysanaya madaxweynaheena geesiga madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo Allah raxmaanka hadaayo waanu duceynaa ha guuleeyo guul iyo gobonimo SOL waxaan leeyahay Allah raxmaanka iyagana shana fardowsaagi way maanta hadee noolaan lahayn iyo hablii Soomaaliyeed waxa wataa ko kale guul iyo gobonimo hablahana ilaawi maayo way markaaba habla shahaw karinaya habla la socday deemkana haween Soomaaliyeed oo wadaniina ay dunida dacaladeeda ku nool qabyaaladiistayaasha iyo qurunka iyo meelaha waxa iyo nin bilaahana oo bilaaqaba hadaa mid qabyaalad ku reegay qabna malaha hana male waxna iska micin karo qalbigiisuna uu foorra waayo qofkan ku reegaya war amxaar baa ka soo horjeeda balay kale ka soo horjeeda Soomaalinimadeen wax ku nahay sharafteen wax ku jirta Soomaalinimo aad iyo aad baan salaamaya dagaalada yar Puntland iyo Soomaali waxan ay ka sheekanayaan war waxana dhig ha u dhigina insha Allah ta'ala nimankan waa munaafiqiin muslimna ma aha xilli Ramadaan bay ku soo beeganba dagaal dhacay mana kala guuleysanayno waana doqonno ninka ku soo beegay Puntland baa sida noqotay ciyaal yar oo kale meeshan ku jirana Cabdi Barre insha Allah ta'ala baan u deyn doonaa waa rag fara badan baa banaanka soo dhigay oo qabyaalada oo dagaalamayni nabadeen oo raadar qabyaalad ma aha Soomaalinimadana cidna ma aha laakiin kuwa xanuunsan durtaba la soo booday buu reer hebel baa waxana arsaa iyo daarood iyo hawiye iyo umada Soomaaliyeed waa walaalo nimanka siyaasiyiintaana iyaga ay siqan wadaniyiintina yaa la idin kalumin yaan mowqifkiina la idin kalumin Cabdiweli gaas iyo Musabbix iyaga saaxiiba iyaga Itoobiya isugu tagay hadhow kafayga soo wada cabaya ilma xayawaano kaagan waxba ma dhaantid ka qoriga loo dhiibay oranaya kan ku rid iyo kan social media ku jiray oranaya reer hebel baa guuleystay reer hebel baa wallahi isku mid baad adoo dalka joogay qoriga ku dhiiblay tabna qolada sad ku rido aakhirna ciyaarta mutaysan aad baan salaamaya assalaamu calaykum waxaynu balana Soomaalinimo balantiin waxweeyaan nabad iyo nolol guul iyo gobonimo insha Allah ta'ala dalkeenu uu hagaagi doona waxaynu gali doonaa wax la yiraahdo one man one vote election gobolka dalka soo jeed gabkaagana kor u qaad waynu wada guuleysan doonaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh